بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah iska horimaadyo hubaysan ayaa lagu soo waramayaa in daanta galbeed ay ku dhex marayaan xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil aaga Jinin ayaa weerarada ugu xooggan ay ka socdaan iyadoo guutooyinka Israa'iil al-Qudus ee ka dagaalamaya Jinin ay ka warbixiyeen weeraradaasi dhanka Gaza wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa ka warbixisay xadgudubada Israa'iil ay samaysay tan iyo markii xabad joojinta lagu dhawaaqay arrinta ugu weyn waxay ku aadan tahay qoys ka koobnaa 11 qof oo shalay galkii dambe ciidanka Israa'iil ay ku dileen bartamaha Gaza arrintaasi oo si adag loo cambaarayay Xamaas madaxweynaha Mareykanka ayay u dirtay dalab arrintan ku aadan bacdama damaanad uu ka ahaa ammaanka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa isniinta ku sii jeeda Israa'iil si uu u sii ambaqaado hirgelinta heshiiska xabad joojinta oo Israa'iil xadgudubyo ay ku sameynayso sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa weerar lagu qaaday markab gooshiyay xeebaha badda cas xilli Xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen inay joojinayaan weerarada ka dhanka ah Israa'iil duqeyn khasaare sababtay ayaa lagu soo waramayaa in Ukraine ay ka geysatay deegaano ka tirsan gudaha waddanka Ruushka ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn guutada al-Qudus ee ka dagaalantay Jinin ayaa sheegaysa in dagaalyahanadooda iyo ciidanka Israa'iil inay isku farsaareen waqooyiga daanta galbeed gobolka ku yaala waxa ayna sheegeen in dagaalyahanadooda ay ciidanka Israa'iil oo isku dayay inay tuulo qabsadaan ay ka hortageen xaaladana iyo dagaalkana lagu sheegay inuu ahaa mid qaraar iyadoo bartilmaameedku ahaa gaadiidka Israa'iil oo lala eegtay qaraxyo ciidanka Israa'iil ayaa weerarada ka dhanka ah daanta galbeed dardargeliyay dhowrkii maalmood ugu dambeeyay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa qorsheynaya inuu booqasho ku tago Israa'iil si uu wada xaajood oga yeesho horumarka laga sameynayo in dib loogu noqdo heshiisyadii lagu soo daayay maxaabiista marinka Gaza dagaalkan lagu soo afjaray sida laga soo xiganayo janarka 12aad Israa'iil Vance ayaa waxa uu Israa'iil kala xaajoon doonaa sidii loo dardargelin lahaa wajiga labaad ee qorshihii nabadda ee madaxweyne Trump iyo walwalka uu ka qabo ururka Xamaas inay hubka iska dhigto iyo in la abuuro maamul la wareega daanta galbeed ama halkan ku celiya maamul la wareega marinka Gaza wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegaysa in ciidanka Israa'iil ay 47 xadgudub geysteen kadib markii xabad joojintii ay meel martay horaantii Oktoobar dileena 38 qof oo Falastiiniina dhaawaceena 143 qof xafiiska caafimaadka ayaa ku baaqaya in tallaabooyin la qaado xadgudubyada sida oo la kaca Israa'iil ay u geysanayso ka dhanka ah xabad joojinta iyo in kala dambeyntii iyo arrimihii bini'aadamnimadan ay hor istaagayso sida ku xusnayd qawaaniinta caalamiga ah sida laga soo xogeynayo bayaan ay soo saareen Falastiiniyiinta Israa'iil ciidamadeeda ayaa si toosa xabada ugu furaya una duqeynaya dadka rayidka ah dadna xirxiraya waxa bayaanka lagu sheegay in tallaabooyinka noocaas oo kale ay muujinayaan in Israa'iil ay sii wado xadgudubyadeeda marka laga gudbo in xabad joojin lagu dhawaaqay hay'adda ganacsiga badda u qaabilsan dalka Britain ee la yiraahdo UK MTO ayaa sheegaysa in macluumaad uu soo gaaray muujinaya in xaalad ay ka dhacday xeebaha bariga waddanka Yemen gaar ahaan dekedda Cadan markab ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhaceen waxyaabo aan la aqoonin iyo meesha laga soo riday hay'addaasi ayaa baaritaan ku sameynaysa xaaladda ururka Xuutiyiinta dagaalyahanadooda ayaa weerar dhowr ku qaaday maraakiibta marayay gobolkaas oo Israa'iil u raran ilaa laga soo bilaabo 2023 iyadoo ka aargudanaya xasuuqa Israa'iil ka wada marinka Gaza kooxdani Xuutiyiinta ayaa sheegay in ay si dhow ula soconayaan arrimaha xabad joojinta iyo meesha ay marayaan militariga Israa'iil
ayaa ka cagajiidaya in gargaar bini aadamnimo la geeyo marinka Gaza sida warbaahinta ay soo gudbinayso. baabuur waaweyn oo maran ayaa xuduudka Rafax agtiisa saf ugu jira in ay galaan marinka Gaza si cunno loogu raro. wararka caalamkan waxaa ka mid ah qarax ayaa ka dhacay warshad samaysa kiimikada koonfurta wadanka Ruushka, halkaas oo 3 qof ku dhinteen sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka, iyadoo aan la ogeyn waxa dhaliyay qaraxaasi. warshada ku taala Avangard oo ku taala gobolka Bashkortostan ayaa waxa ay soo saartaa baa leeyahay hubka iyo rasaasta ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya Ukraine, sida warbaahinta Ruushka ay ku waramayso. diyaaradaha droniska Ukraine ee leedahay ayaa bartilmaameedsanayay goobaha saliidda lagu sifeeyay ee isla gobolkaas bishii la soo dhaafay. Bashkortostan, gudoomiyaha gobolkaasi Radiv Khabirov ayaa bartiisa Telegram waxa uu ku qoray in qaraxa weyn la maqlay oo burburiyay dhismaha qayb ka mid ah warshadaasi kiimikada samaysa. 3 dumar ah ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen oo 2 ka mid ah isbitaalka la dhigay. oona imaan doonaa arrimahan xadgudubka xabad joojinta iyo safarka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, iyadoo uu ka sii horeeyay taliyaha taliska dhexe ciidanka Mareykanka, isla markaasna la sheegay Mareykanku inay ciidamadu diyaarinayaan. laakiin weerarkii Qatar Israa'iil ku qaaday ayaa warar ay ka soo baxayaan oo Mareykanku iska dhigayo in weerarkaas uusan waxba ka ogeyn, laakiin uu la yaabay isbedelo badan ay ku keentay arrintan. bal sida arrintan looga hadlay inooga waran iyo waxa laga qorayo. ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe Steve Witkoff ayaa sheegay mar waraysi uu siiyey barnaamijka la yiraahdo 60 daqiiqo inuuna wax fikrada ka haysan qorshihii Israa'iil ay ku weerartay madaxdii Xamaas ee ku sugnaa Qatar. waxaan aroortii ka soo kacnay uu yiri hurdo, waxaanan aragnay uu yiri weerar ka dhacay. dabcan waxaa isoo wacay uu yiri madaxweyne Trump. Witkoff ayaa waraysiga ku sheegay waxay ila tahay aniga iyo Jared oo ah wiilka uu saddeq u yahay madaxweyne Donald Trump in ay dareemeen in khiyaano ay dhacday, Israa'iil ay khiyaantay Mareykanka. wuxuuna intaas ku daray Jared Kushner ayaa isaga laftirkiisa waxa uu sheegay Trump in uu dareemay in Israa'iil ay qaaday tillaabooyin ay xakamayntii ka baxday, waa sida hadalka loo dhigay. Qatar ayaa wada xaajoodyada lala lahaa ururka Xamaas muhiim u ahayd. sidoo kale Turkiga iyo Masar ayaa door lahaa. waxaan luminay buu yiri kalsoonidii ay nagu qabtay Qatar iyo Xamaas oo la waayay cidna la xaajooda, maadaama dadkii wada xaajoodka geli lahaa khatar la geliyay. waxayna noqotay mid aad u dhib badan in lala xiriiro ururka Xamaas. waa gartay waxa warbixinta marka laga tago dad badan su'aal bay gelinaya arrintan oo xitaa khubarada Mareykanku ay ka mid yihiin. waxay leeyihiin saldhigga ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay gobolka bariga dhexe Al-Udeyd ayaa Qatar ku yaal. waxaa la isticmaalaya Israa'iil isticmaalaysana waa diyaaradaha F-35, F-16 oo Israa'iil ay leedahay, F-18 iyo raadaaradii iyo gantaaladii iyo qalabka isgaarsiinta. marka Mareykanku arrintan kama war la'ayn baa leeyahay. Bahrain waxa ku yaal taliska shanaad ee ciidanka Mareykanka. marka isdifaac miyay noqon kartaa arrintan? ma lagu qanci karaa hadalkan uu sheegay Stephen Witkoff? weerarkii la qaaday marka la fiiriyo Mareykanka ayaga laftirkooda ayaa saacadihii ugu horeeyay ee weerarkaasi u dhacay waxay sheegeen inay wargeliyeen wadanka Qatarna waxay ka marqaati kacday in weerarka markuu dhacay ka bacdi ay Mareykanka la hadleen, laakiin aan hore loo wargelin. tan kale waa dhab weeye saldhigga militariga ciidanka cirka ugu weyn ee gobolka bariga dhexe ayaa ku yaalay wadanka Qatar. Qatar agabka militariga waxay ka iibsanaysay wadanka Mareykanka, waxayna isla wadeen heshiisyo ayaa ka dhexeeyay xagga amniga ah. si kastay ku dhacdaba Qatar weerarkii loo geystay sida khabiirada qaar hadalka u dhigayaan, haddii ay u suuroobi lahayd
إسرائيل إنay ka takhalusto madaxda ururka Xamaas ee wadaxaajoodka u qaabilsanaa waxaa laga yaabi lahaa bay leeyihiin in Maraykanka markaasi uu Israa'iil taageeri lahaa laakiin maadaama ay fashilantay ayaa Maraykanku waxa uu galay xaalad aad iyo aad aan u wanaagsanayn oo kalsoonida ka lumisay sida ay khabiirada hadal ku dhigayaan wadamo badan oo bariga dhexe ka tirsan oo Sacuudiga ku riixday inuu heshiis la galo wadanka Pakistan labada dhinacna ay yiraahdaan haddii wadanka Pakistan la weeraro ama haddii Sacuudiga la weeraro in ay u tixgelinayaan labada dalba in la weeraro intaa waxa dheer waxa ayadana soo baxaysa hadda oo soo xoogeysanaysa kulankii Sharm el-Sheikh in Maraykanka sidii uu wax u waday iyo qaabkii wax u waday ay u shaqeyn waayeen gaar ahaan markii Netanyahu loo diiday inuu kulan ka soo qayb galo madaxdii ka qayb galaysa shirkana ee Carbeedna ay mowqifkooda ku cadaayeen waxaana muuqata hadda Israa'iil inay xabajoojinta laga tirsanayo in ay xadgudub badan ku sameynayso Maraykankana waxaa muuqata in madaxweynahooda uu mas'uul ka yahay xabajoojinta asagana ku dhawaaqa dagaalka inuu dhamaaday inkastoo khabiiro ay ka mid yihiin Jeffrey Sachs uu aaminsan yahay nabadeyn iyo xabajoojin waa kala duwan yihiin nabadeyn marka laga hadlayo waxa weeye dhinacyada dagaalamaya ayaa la rabaa in muddo loo kala dab qaado ay wada hadlaan heshiis wada saxiixdaan nabadda waxay leedahay xeerar iyo qaabka uu u dhigay madaxweynaha Maraykanka wax horey loo arka maaha wuxuuna u haystaa inay tahay nabad khiyaali ah ama khiyaana waa gartay waayahay dhaqdhaqaaqa marka Maraykanka gobolka ay ka wadaan iyo xabajoojinta Israa'iil ku xadgudbayso ma fariin Israa'iil loo dirayaa oo cagaha dhulka dhiga leeyahay bay xalay wararkeena waxaan ku sii deynaya saakayba in Maraykanku ay leeyihiin Xamaas arrinta si fiican bay u fulisay heshiiska maxaabiistii way soo deysay kuwa kale way ka shaqeynaysaa godadkii bay faagaysaa meelihii lagu dumiyay maxaabiista ayay ka soo saaraysaa ma isqabanayaan warkaasi iyo Netanyahu in xitaa ciidankan ay ku yiraahdeen kuma talinayna dagaal in lagu laabto Maraykanka Gaza maxay u muuqataa arrintani gobolka warar badan oo xasaasi ayaa ka soo baxaya wixii ka dambeeyay xabajoojinta Israa'iil iyo Maraykanku waxay filayeen in wadamada Carbeed ee sunnada ah in ay xiriir wanaagsan la yeelan doonaan Israa'iil hase ahaatee sida warbaahinta Israa'iil ay qorayso arrintaasi waxay ku koobnaatay oo kaliya sida idaacada xaranood oo qoray wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga wadamadii kale waxaad moodaa mowqifkooda inuu ka duwan yahay oo ay Turkiga la xirteen barnaamij gaar ah oo aan Turkiga iyo saameynta laga yaabo inuu ku yeesho Maraykanka Gaza looga hadlayo ayaa saacadaha soo socday idaacada soo geli doona inta marka la yiraahdo waxa weeye waxa loo hanqaltaagayay in gobolka bariga dhexe ay nabad ka bilaabato laakiin nabadaasi hadda waxaad moodaa in aynan waxba ka soo naasacdeen maadaama Israa'iil ay xushmeyn laadahay xabajoojintii ay la gashay cidna lama gelin xabajoojintii lagu dhawaaqay dowladda Maraykanku ay ku dhawaaqday iyo nabadii ay ku dhawaaqday oo madaxweynaha Maraykanka si buuxda u yimid oo yiri baarlamaanka Israa'iil gudaheeda dagaalku waa dhamaaday Sharm el-Sheikh uu ka yimid dagaalku waa dhamaaday wali dad ay dilaysaa Israa'iil taa kaliya maaha xadgudub ayay ku sameynaysaa xabajoojintii ay la gaartay ururka Xisbullah Israa'iil maxay waxaan u sameynaysaa ayaa khabiirada qaar ay la fagureen waxa leeyahay Israa'iil xaalku waa ku xumaaday oo sababta xaalku ku xumaysaa waxay tahay hadafyadii ay lahayd ma gaarin Xamaas awood bay leedahay wali ayada maamulaysa gobolka wixii la shaqeynayay Israa'iilna tallaabooyin ayay ka qaaday qaarna waa daba taagan tahay waxaana muuqata Israa'iil inay la dhacsanayn sida ay wax u socdaan Xamaas oo awood leh iyo waxa la leeyahay waxay rabtay inay gaartay qodobadii 20ka ahaa wali waa rahman yihiin marka laga reebo xabajoojinta la gaaray waxaana lagu tilmaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka booqashada uu gobolka u marayo inuu wajiga labaad bilaabo wajiga labaadna wadamada laga yaabo inay garwadeenka ka noqdaan oo loo daba fariisanaya Turkiga ayaa kamid ah mowqifka wadanka Ruushka waa cad yahay wadan saddexaad
awood kastuu leeyahay ama Maraykan ha noqdo ama waddan kale ha noqdo haddii gantaallo fogaanta foga oo Ukraine keeno oo Ukraine ay ku weerarto gudaha waddanka Ruushka in Ukraine iyo waddanka hubka keenay loo tixgelinayo inay dagaal kula jiraan waddanka Ruushka arrintaasi iyadoo halkaa marayso ayaa madaxweynaha Maraykanka waxaad moodaa diilidii uu qabay madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky la xiriirtay in hubkaas fogaanta dheer gaari kara iyo gantaalada in loo soo gacan gelinayo uu ku hungoobay intaa waxaa dheer oo ayadana aan meesha ka fogeyn Maraykanka waxaa marka dambe soo cadaanaysa in Ruushka ay u muuqato in uunan ka tanaasuleynin wax khatar gelin kara xuduudkiisa mana ogolaanayo Ukraine khatar ku ah amniga waddanka Ruushka waxaana muuqata gobollada qaramay ha joogtay in Ukraine ay qarka u saaran tahay inay burburto Maraykanka iyo waxa uu yeeli doono iyo shirka Budapest waxaan u deenaynaa waqtigiisa iyo maalintiisa laakiin Maraykanku xaalku waa ku culus yahay waxaan kusoo gabagabeynaa war hadda soo dhacay safaaradda Falastiiniyiinta ee magaalada Qaahira ayaa waxay ku dhawaaqday in maalmada Isniinta la furi doono kala goyska la iskaga gudbo Masar iyo Gaza ee Rafah la yiraahdo warka wuxuu ku soo kordhaa barnaamijyadeena dambe ayaan idin kugu soo gudbinaynaa inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii wararka caawa